walaalayaal sidii caadada inoo ahayd Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu horeyn dambigeena ha dhaafo dambigii waalidiinteena ha dhaafo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maanta culimadeena khayrka badan qaadi Ismaan Sheekh Ismaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr badan ha siiyo qaadigeena iyo labada doctor Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr badan ha siiyo Dr. Maxamed Sheekh Abdi Karim Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha u saaro iyo sheekheena weyn ee masaajidkeena gacanta ku haya Sheekh Khalid Abdi Gaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha xifdiyo ugu horeyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha u saaro juhdigaas khayrka ah ee ay nala wadaan dhismaha masjidka ah iyo intii kale ka horeysay ee culimada ahayd ee halkan aan joogin ee hore noola soo waday iyo inta dambe nala wadaystaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo dhamaantoodba walaalayaal sida culimadu sheegtay dabaqii labaad ee aynu wadnay intii rabadaanta iclaaminay meel wanaagsan buu marayaa ma sha Allah dadka walaalaha muxsiniinta ee kii horena ka soo qayb qaatay kanna way wadaan meel fiican buu marayaa waxaan taakiidinayaa ama muujinayaa sida hore loo sheegay Sheekh Ismaan uu sheegay sibirka aan u baahannahay waa 3,000 xabo 2,300 baa naga dhiman 700 waan haynaa cid allaale iyo cidii qaadanaysa sibirkaas waa soo dhaweynaynaa cidii biraha qaadanaysa cidii kaabadaha qaadanaysa cidii qaadanaysa wixii ay wadaba aad baan u soo dhaweynaynaa waa waqti wanaagsan walaalayaal laga soo faa'iideysto sida culimadu sheegtay waxa kale oo walaalayaal aan rabaa inaan xuso dadyoogii walaalaha ahaa ee ayaamihii u dambeeyay muxsiniinta ay wax naga soo gaareen magacyadoodii oo runtii ah dad aad iyo aad u qiimo weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha u saaro waxaan bilaabayaa family-gan wada socda ee walaalaha ah ee lacagta wanaagsan kaga qayb qaatay ee ila soo xiriiray xalayto oo kaga qayb qaatay $3,000 masaajidka inay ku darsanayaan haddaan magacyadooda xuso anoo codsanayo in loo duceeyo dadka walaalaha وعاشا حاج إسماعيل علمي ودمان علم حاج إسماعيل علمي رنتي أو لقرنايو وقبل كان تقدر ندك قديم كنا ولا ينواحي سبعة تدعانا إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنات كهوصارو لعقت أصدح كنا $1 وحيو بحيان لبدو دي والد وردنتي أيو بحيان إلهي كالصوابيان لأن هاي صدقة تجارية أنا هوقدقو هذا المقعدو دي كل لابتو عاشا حاج إسماعيل علمي سينب حاج إسماعيل علمي oo inantaas iyadu Sacuudiga ku nool Aamina Xaaji Ismaaciil Cilmi Ibrahim Xaaji Ismaaciil Cilmi Hinda Xaaji Ismaaciil Cilmi Safiya Xaaji Ismaaciil Cilmi dhamaantood inantaas Sacuudiga joogta iyo hal inanoo Hargeysa joogta mooyaane UK bay ku nool yihiin $3,000 ayay kaga qayb qaateen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha u saaro waxay u bixiyeen sidaan hore u sheegay labadoodii waalid hooyo ugaaso jaamac Sulaymaan Ilaahay qabriga ha u nuuro qabrigana ha ugu geeyo iyo aabahooda ah aabe Xaaji Ismaaciil Cilmi labadaba waxaan u xusaynaa walaalayaal qofku markuu dhinto wuxuu u baahan yahay waalidiinteenu ay dhimato wuxuu u baahan yahay in wax loo bixiyo in wax loo sadaqeeyo marka walaalayaal dadka walaalaha muxsiniinta waxaan leeyahay cidii waalidiintoodii ay socdeen ee ay hoyga aakhira aadeen ka faa'iideysta waa chance la heli kara maaha dhammaanteen aan ka wada faa'iideysano oo waalidiinteen wuxuu bixino haday dhinteen iyo haday nool yihiinba waxaan ku sii xijinayaa walaalkay oo na soo gaarsiiyay Daawud Salebaan Cabdi oo runtii nin aad iyo aad u qiimo badana runtii aad iyo aadna aniga ninkaas iigu weyn yahay runtii ma sha Allah oo in badan masaajidka nagala qayb qaatay dad walaalaana inta wax uga soo qaada wuxuuna soo gaarsiiyay $213 qof muxsina oo magaciisa qarsaday ayuuna ka soo qaaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha u saaro ugu dambeyn walaalayaal waxaan xusayaa Faysal Jaamac Axmed wayna soo gaarsiisay 30 xabo oo sibira waxaana nagu wareejiyay wakiilka ahaa sheekheena weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeye Sheekh Baashe Obsiye Ducaale oo na soo gaarsiiyay intaas ayaan ku soo koobayaa maanta walaalihii waxna soo gaarsiiyay waxaan leeyahay kuwii hore uga qayb qaatay iyo kuwa hadda aan magacyadooda xusnay
iyo kuwa soo socdaba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u wada saaro dhammaantoodba walaalayaal masaajidka meel wanaagsan buu marayaa guul baan inoo rajaynayaa aan gacmaha isqabsanno aqalka ilaahay ka wada shaqayno sida culimmadu hore u sheegtay masaajidadu waa meelaha ugu khayrka badan meelaha ilaahay jecel yahay meelaha la wada leeyahay ee ilaahay maaragtay subxaanahu wa tacaala keligii uu iska leeyahay marka walaalayaal aan ka faa'iidaysano mid qurbaha jooga mid gudaha jooga dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay ayaan baaqa u jeedinaynaa ka soo faa'iideysta masaajidka walaalayaal meel wanaagsan buu marayaa wali wuu socdaa intaanu dhammaan qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray ka soo faa'iideysan leenahay intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan u mahadnaqayaa walaalaha garbahayga fadhiya runtii iyo kuwa hadda maqan iyo kuwa kale ee aan garanaya sida wanaagsan ee mugale uga qayb qaatay masjidka ee ila shaqeeyay ee garab istaagay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuunbaa u abaalgudi karaya